السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعن أصحاب شرفت بدن وأولالكين إنجرين هارون معروف حدي الجانالك كو عصبتاي سبسكرايب نوصار جنبلالكن هاي المامن si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee ka faa'iideysta xogaha aan baahino. Waxaynu maanta ka hadli doonaa xanuun in badan Soomaalidu ay la dhibaataysan tahay kaas oo Soomaalida u taqaano laab-jeexa. Hunguriga iyo caloosha waxa u dhaxeeya muruq yar kaas oo sida caadiga ah xirma ama guntima markay cuntada u gudubto caloosha. Haddii uu dabco ama uu si fiican u xirmi waayo, muruqaasi waxa dhacda in acid iyo waxyaabo kale ay ku jira caloosha ay si fudud ugu soo gudubto hunguriga, taasoo sababta laab-jeex. Calooshu waxa ay leedahay unugyo khaas ah oo ka difaaca in acid ay waxyeelo u geysato, laakiin hunguriga ma lahan unugyo ka badbaadiya acidka. Sidaa darteed, marka qofku uu dareemo laab-jeex, waxa ay ka turjumaysaa inay acid caloosha gubayso unugyada hunguriga. Haddii astaamaha laab-jeexu ay soo noqdaan ugu yaraan 2 jeer usbuucii, waxaa dhaca xanuunka loo yaqaan laab-jeex. xaaladani caafimaad waxaa ka cawda dad badan oo ka mid ah bulshada. Daba su'aasha isweydiinta badan ayaa waxay tahay maxaa sababa laab-jeexa? Waxa ugu badan ee sababa laab-jeexa waa eerno, xaalad caafimaad oo la xiriirta in xubin ka mid ah jirka ay booskeedu ka baxdo una gudubto boos kale. Qaybta kore ee caloosha iyo muruqa u dhaxeeya hunguriga iyo caloosha ayaa kor u baxa kana sarmara muruqa u dhaxeeya saableyda iyo ubucda. Sida caadiga ah, muruqan waxa uu ilaaliyaa inay isu gudbaan labada qaybood, balse markay caloosha kor u baxdo, waxa hunguriga u gudbaa aashitada ku jirta caloosha, taasoo sababta laab-jeex. Waxaa jira sababo kale oo uu leeyahay laab-jeexu, sida cuno aad u culus ama in la jiifsado cunada kadib. Cayilka, cunooyinka qaarkood sida kuwa basbaaska uu ku badan yahay, shukulaatada, toonta, shaaha, kafeega, liinta, sigaarka iyo daawooyinka qaar sida aspiriinka. Sababta ugu badan ee laab-jeex ayaa ah in qofka uusan si wanaagsan u calaacalin cunada ama uu biyo kula cabo cunada, taasoo ku qasbaysa caloosha inay ku burburiso aashito badan. Aashitadan ayaan u soo gudubta hunguriga, waxaana halkaasi ka dhasha dareenka qofka uu dareemo xilliga laab-jeexa. Astaamaha laab-jeexa waxay soo baxaan inta badan marka la cunteeyo kadib. Waxaa ka mid ah calaamadaha laab-jeexa: daac qurun, kuleel xabadka ka soo kacaya caloosha ilaa iyo hunguriga, laqanyo, hingo, culeyska oo luma oo qofka ay ku adkaato inuu wax liqo iyo wixii la mid ah. Ma la daweyn karaa laab-jeexa? Haa, waxa uu u baahan yahay waa qofka inuu isbeddel ku sameeyo qaab nololeedkiisa. Sida ugu wanaagsan ee loo daweeyo waa in isbeddel lagu sameeyo qaabka qofka uu cunteeyo, sida in la iska ilaaliyo cunooyinka ama cabitaanada kicinaya laab-jeexa. Cunno yar cun ilaa 4 jeer maalintii. Sigaarka oo la joojiyo, barkin dheer barko markaad cunteyso kadib. 2 ilaa 3 saac ha jiifsan. Hala cabin biyo ama sharaab xilliga aad cunteynaysid. Dharka kugu dhegan ama suun kugu dhegan ha xiran. Samee jimicsi si aad u yareyso cayilkaaga. Haddii intaas waxay ka tiri waayaan, qofku waxaa loo doorbidaa qalin yar si loo adkeeyo muruqa. Haddaba daawadayaal, talo ayaa halkan idinku soo gudbin doona insha Allah. Isku day inaad joojisid cunada oo biyo lagula cabo. Cab biyaha 30 daqiiqo ka hor inta aadan cunteyn ama markaad cunteyso kadib. Iska ilaali dheregta saa'idka ah, sababtoo ah dheregta saa'idka ah waxay culeys saaraysaa dheefshiidkaaga, waxaana badanaya xaddiga aashitada iyo caloosha ku gubayso cunada. Kana fogow waxyaabaha kicinaya laab-jeexa sida basbaaska badan, digirta, kafeeyga. Daawadayaal, haddii aad daawatay muuqaalkan, like-ta hanaga iloobin, subscribe-tuna waa dhiirigelin, like-tuna waa codsi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.